sida dabiiciga ah ee ilkaha loogaga saaro dabarka. Qofna ma jecla inuu ilkihiisa dabar ku yeesho. Haddaba waa maxay dabarku? Dabarku waa macdano adag oo ka samaysmay candhuufta iyo cunnada la cuno, taasoo markay aruurto noqota huuri ilkaha hareerahooda ku samaysma. Dabarku waxa uu ilkaha ku samaysmaa marka aad ilowdo: 1. buraashida ama cadaynta ilkaha. 2. findhicilashada ilkaha. 3. luqluqashada ama biyo raacinta cuntada kadib. Haddii aadan ilkahaaga ka saarin dabarka, dabarku wuxuu noqdaa wax adag, wuxuuna sababaa cudurrada ilkaha ku dhaca sida irid dhiigga. Haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa 7 dariiqo oo aad ilkahaaga aga saari karto dabarka, agana dhigi karto kuwa u cad sida dheemanka oo kale. Dariiqada 1: cusbo iyo fixiso. Si aad ilkahaaga aga nadiifiso dabarka, soo qaado 1 qaado buuxda oo fixiso ah iyo far iyo suul u good cusbo ah, iskuna qas. Soo qaado wax yar oo kamid ah isku jirkaas kuna cadayo. Sidoo kale waxaad ku darsan kartaa daawada ilkaha sida Colgate ama Sensodyne haddii aad isticmaasho, kuna cadayso. Kadibna ku luqluqo biyo diiran. Haddaba fiiro gaar ah, ha ku cadaysanin fixisada wax ka badan 1 mar isbuuci. Dariiqada 2: qolofta limo bambeelmada. Si aad ilkahaaga aga nadiifiso dabarka, ku xoq qaybta cad ee limo bambeelmada ilkahaaga 2 ilaa 3 daqiiqo. Kadibna ku luqluqo biyo diiran. Fiiro gaar ah, isticmaal qoloftan limo bambeelmada 2 ilaa 3 jeer isbuuciiba. Dariiqada 3: dheecaanka limo dhanaan. Haddii aad rabto jawaab fiican oo degdeg ah, limo bambeelmada booskeeda ku bedelo limo dhanaanta. Cadaygaaga oo Colgate ama Sensodyne leh ku shub wax yar oo ah casiirka limo dhanaanta. Si deganna ugu caday ilkaha ka hor inta aadan luqluqanin. Afka ku hay dheecaankaas ilaa daqiiqado. Fiiro gaar ah, isticmaal habkan 2 isbuucba mar. Haddii kale ilkaha ayaad iska dhaawacaysaa, maxaa yeelay dheecaanka limo dhanaanta waxaa ku jira aashitada lagu magacaabo citric acid oo badan, taasoo ku keeni karta ilig xanuun iyo dareen badan. Dariiqada 4: miraha sisinta. Si aad ilkahaaga aga nadiifiso dabarka, soo qaado 1 qaado buuxda oo sisin ah. Calaanji, hana liqin inta aad calaanjinayso sisinta. Cadayga soo qaado wax yar oo daawada ilkaha ah, mari kuna cadayo. Kadibna ku luqluqo biyo diiran. Dariiqada 5: saliid qumbe. Si aad ilkahaaga aga nadiifiso dabarka, isticmaal saliidda qumbaha. Saliidda qumbaha waxa ay soo nuugtaa wasaqda afka, waxayna yareysaa dabarka. Sidoo kale waxay leedahay walax antibacterial ah oo afka urka ka ilaaliso. Isticmaal 1 ama 2 qaado oo ah saliidda qumbaha. Afkaagana ku hay 10 ilaa 15 daqiiqo. Iska tuf, kadibna ku luqluqo biyo diiran. Dariiqada 6: strawberry iyo yaanyada. Si aad ilkahaaga aga nadiifiso dabarka, isticmaal strawberry iyo yaanyada. Miraha strawberry-ga iyo yaanyada waxaa ka buuxa fitamiin lagu magacaabo vitamin C. Mirahaas waxaad la isticmaali kartaa limo dhanaanta ama bambeelmada. Wax yaroo kamid ah dheecaankooda ku darso daawada ka hor inta aadan tufin. Afka ku hay ilaa 5 daqiiqo. Kadibna ku luqluqo biyo caadi ah oo nadiif ah. Dariiqada 7: dhagayare. Si aad ilkahaaga aga nadiifiso dabarka, isticmaal dhagayaraha. Dhagayaruhu waxaa loo isticmaali jiray waayadii hore xanuun baabi'iye iyo dilidda bakteeriyada. Wadada fiican oo aad ku isticmaali karto waa inaad calaaliso kadibna ku cadayato. Isku day inaad calaaliso dhagayaraha halka aad calaalin lahayd xanjada. Mawduuceena halka ayuu inoogu dhan yahay. Inta aan ku kulmi doono mawduuc la mid ah
mawduucan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo mahadsanidin